cudur fayras ah awgiis ninkani wuxuu yeeshay baalal. Wuxuu ogaa haddii uusan si degdeg ah u baran duulista in dadku ay qaban doonaan oo ay tijaabo ku samayn doonaan. Laakiin si kasta oo uu isugu dayay wuu ka kici kari waayay dhulka. Dabadeed si lama filaan ah wiil ayaa hortiisa ka soo muuqday. Isagoon erey oran wiilkii wuxuu boorsadiisa ka soo saaray kalluun ceyriin ah wuxuuna dhigay dhulka ninka hortiisa. Ninkii isagoo ku dhaqmaya dareenkiisa dabiiciga ah wuxuu u orday kalluunkii wuxuuna bilaabay inuu u cuno sida bahal duurjoog ah. Markii uu arkay quustiisa iyo gaajadiisa wiilkii qalbigiisa ayaa jilcay wuxuuna go'aansaday inuu caawiyo. Wuxuu ninkii geeyay webiga agtiisa isagoo u malaynaya inay tahay meel wanaagsan oo uu ku tababarto duulista. Laakiin ninkii wuu diiday sababtoo ah laamo badan ayaa biyaha ku jiray taasoo ka dhigaysay mid ay adag tahay inuu duulo. Wiilkii ma uusan quusan. Wuxuu ku booday webiga wuxuuna ka saaray dhammaan laamihii. Hadda jidkii waa furnaa. Wuxuu yidhi hadda isku day. Markii ugu horreysay ninkii wuxuu ku orday awooddiisa oo dhan wuxuuna hawada u booday webiga korkiisa. Wuxuu ku guulaystay inuu duulo ku dhawaad 1 mitir ka hor inta uusan si toos ah ugu dhicin biyaha. Wuu kacay oo mar kale isku dayay. Markan wuxuu duulay meel ka sii fog laakiin mar kale wuxuu ku dhacay webiga. Dabadeed wiilkii wuxuu yidhi hadda waxaad la mid tahay shimbir. Ha u malayn in baalashaadu ay yihiin wax ka gooni ah waa qayb ka mid ah qofka aad tahay. Markuu taas maqlay ninkii wuxuu baalashiisii ku eegay si cusub wuxuuna go'aansaday inuu mar kale isku dayo. Markan wuxuu fuulay geed dheer dushiisa isagoon ka labalabayn ayuuna ka soo booday. Wiilkii wuu cabsaday wuxuu u maleeyay in saaxiibkiis uu dhulka ku dhigi doono laakiin wuu qaldanaa. Ninkii wuxuu u duulay si sareysa oo fog mana ahayn oo kaliya inuu duulay laakiin wuxuu si buuxda u maamulay duulimaadkiisa. Wiilkii wuu orday si uu u helo laakiin saaxiibkiis wuu tagay. Wuxuu noqday shimbir xor ah qof ugu dambeyntii aqbalay naftiisa. Haddaba saaxiibayaal haddii aad weligaa yeelan lahayd baalal caynkaas ah xagee ayaad jeclaan lahayd inaad marka hore u duusho?